ma rabtaa inaad mustajaabu dacwa noqotid dadku waxay dhahaan iyo ilaahay in badan baan bariyo wixii aan weydiisanayay maan arag ma rabtaa in laga aqbalo saama jecesha in baryadaadu cinda allaahi maqbuul ay noqoto albaabada alle ay kuu furan yihiin waxaa ka mid a waxyaabahay ku furmaan qofkoo wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay 3 nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuralayda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyni way daataan qaar buu ciid yara haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulundulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunbay dhagax ku soo dulundulcoodayo afku ka daboolay buur cidla ah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax ku ood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysaa toona aanay jirin laa mobile baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay 3 nin yidhaahdeen waryaah nin walowba bal wixii aad isleedahay camal wanaagsan buu hayo ilaahay aad ugu dhowaanaysay alla ku bari 3 nin mid waliba camalkiisu ilaahay ku bari mid wuxuu ku bariyay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalin maalmaha ka mid a xoolaha markuu soo xareeyo carruurtiisa iyo reerkiisa intaan wax siin ayuu waalidkii iyo da'a wax siin jiray maalintii dambe xoolihii fogaadeen goor dambuu yimi wuu soo lisay markuu la dil yimi buu u yimi labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi carruur iyo cid toona waxaa siinay waalidka u horraysi wuu la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawa iska 20 daqiiqo qofka markuu da' gaadho wuu yaro seexdaa waa soo toosaa waa yaro seexdaa waa soo toosaa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waayey sidoo ula dul fadhiyay caanihii baa waagu u baryey caanuu xalay lisay oo islaha mar uuna indhaa kala qaadan hana toosinin hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaa kala qaadan aad siisid buu lahaa dabeetana waagaa ugu baryay siduu ula dul fadhiyey dabeetana ilaahay buu baryay wuxuu leeyahay yaa rabbi waad ogtay inaad dartaa sidaa u samaynayay oo aan waalidkay sidaa ugu samafalayay ilaa u dhagaxaa naga fay buu yidhi dhagaxii in buu hanqada laakiin in laga bixi kara maaha mid kale ilaahay baryey wuxuu ku baryey inuu shaqaale u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii uu siiyey oo midi uu ka tegey xoolihii uu midi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo yidhi warriyo xoolahayga isii wixii aan kuugu shaqeeyey isii dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aniga halkaa daaqayo dhan adaa le kaxayso war igu cayaarinaya intii maalintayduuna shaqaystay intayduuna sii buu leeyahy wuxuu yidhi intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysay wixii aad ka tagtay wakaasay ilaahu waad ogtay buu leeyahay ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yar ii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daraadda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanu sheeganaya ilaahu naga fayd in kalea ilaahay ka fayday weli lagama wada bixi karo saddexdu xadiis kuwa kala horraysiinayaaye siduu kala horreeyay umayna sheegin kanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh in adeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadhaa inuu isku dayay si kasta inuu ku helo way diiday gabadhii diiday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi sukay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballan qaaday inuu nuskiilo dahab u siiyey nuskiilo dahaba nuskiilo dahabi waa imise de waa kuus dhan oo lacaga waa xoola aad u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbashay laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantay baahina waxan way ku kaliftay iyadoo dahabkiina haysaba waxay ku tidhi waryaa war ilaahay ka boqo
oo meeshaasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyn ittaqi illaaha bay ku tiri eraygaasaa madaxiisa galay ittaqi illaah war hooy ilaahay ka cabso ayay ku tidhi dabeetana maradiisu dib u xidha wuu iskaga tegey dahabkiina wuu siiyey xumihiina waxaa ka kaxaysay in lagu yidhi maxay ittaqi illaah ilaahay ka cabso ilaahay buu baryey ilaahay camalkaasu ku baryaya ilaahu adiga daraadda inaan zinadaa uga tegay dabeetana ilaahay dhagixii uu ka fayday idan saddexdan nin mid ka mida ducadiisa waxaa lagu aqbalay maxay inuu farjigiisa dhowrtay qiso kale oo xagga haweenkaana aan mid sheega malaha nebiyullaahi ibraahim ayaa hijrooday isagoo ay la socoto haweenaydiisii saaro la odhan jiray saarina gabadh qurux badan bay ahayd waa nebi isxaaq hooyadii iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqorrada ka mid uu ka taliyo boqor aada u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeyaa gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeyaa nebi ibraahim oo safara haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badan oo saaro la yidhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaada boqorkaa loo geeyey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadihi latii macaka war tan kula socotaa maxay ahayd nebi ibraahim wuu ka cabsado wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadlay wuxuu ku yidhi na waa walaashay baan ku idhiye haybeenini gabadh kastoo aroosuu ninkani qaataa waxaan ku yidhi waa walaashay waanad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeenna unbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kale oo aynlo walaalle ma jirto ee haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yari sug waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay baratay ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wabirasuulik waaxsantu farji u fiirsa tacbiirka waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaane aan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya hada alkaafir ilaw gaalka ah igu ibtilayn waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuha billaahi wa birasuulih rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ah igu itixaamin bay tiri gaalkii baa suuxay markuu suuxay ee nafti isugu timi waa labadooda ayaa istidhi oo hadday naftu ka baxdana soo la odhan maayo iyadaa dishay ilaahayow ha igu dilin bay tidhi illa waxaa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay waar bari yara sug bay tiro waa weysaysatay waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii ileg alle ku bariday haddana dib u suuxa naftu markay qabatay bay istiri war haddana waa lagu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaameen mar saddexaad ba haddana isku day ilaahay bay haddana bariday waa miyir beela waa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqayse kaxayso nebi ibraahim
taana qaada buu yidhi weliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaa soo siiyey ee nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timo wa huwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya iyana way taagnayd oo ilaahay bay baryaysay isna xagga kaluu taagan yaho salaadu taagan yahay oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu badbaadiyo idan ayuha alaxiba waxaan leenahay haddaad rabto in ducada laga aqbalo waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mida markaa dhowrsanida farjigaaga uu dhowrsanaaday kuwii godka galayna ilaahay kurbada waa kaga fayday gabadhii boqorka dhami uu kaxaystayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku badbaadiyey waxaan ku soo koobaynaa marka dhowrsoonidu diintay ka mid waxyaabaha jannada lagu galay ka mid waxyaabaha firdowsil aclaa lagu helay bay ka mid waxyaabaha qur-aanka ilaahay nebigu ammaanay nebi yuusuf ha ku ammaanay bay ka mid haweentu ammaanay maryamata bnu cimraan ilaahay ku ammaanay bay ka mid tahay walidaalika qofka muslimka ah waa inuu dhowrsanaadaa inuu dhowrsanaadaana muqadamaad bay u baahan tahay kow calaaqadaad ilaahay la leedahay waa inay xoogan tahay haddii kale shaydaanku ugu duufsanaya rabbiga iyo weynidiisa iyo cadamadiisa inaad xasuusantahay janno iyo naar inaad rumaysantay man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir baa uu nebigu leeyay markii ilaah iyo rasuulba rumaysanay sidaa ha yeelo qur-aanka ilahay wuxuu leeyay dalika yuucadu bihi man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir saas waxaa lagu waaninayaa kuwa ilaah iyo rasuulba rumaysan iyo maalinta aakhiro idan inaynu dhowrsanaana waxay u baahan tahay idin dhex maraya haweenkii nebigu qabay maxaa lagu yidhi falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad hadalka ha jajabinina hadday noqoto inaad dumar wada hadashaan si rasmiya ula hadal oo sida rasmiga ah iyo hadalka wax ku lifaaqan yihin waa kala laba qofku markaanu dan lahayn gabadha dukaankaa markay soo gashay alaabta laga yibini waa imisa iyo waa intaasaa la is idhaahdaa waa hadalaan dan laga lahayn laakiin haddaad hadalka jajabiso bal warramaya reerihiisay ahaayeen war kale aad bilowdo waa maaha dariiqii saxa ilaahay markaa haweenkii nebi maxamed qabay waxaa lagu yidhi falaa takhdacna hadalka ha jajabinina baa la yidhi ma aamusaa lagu yidhi maya waqulna qawlan macruufa baa ilahay yidhi hadal fiican dhaha hadla baa la yidhi laakiin hadalka jajabani ma banaana waxaa la faray haweenku si ay u dhowrsanaadaan iyo inay xijaabtaan asturkooda inay qaataan waxaa la faray quruxdooda inaanay dabadda soo dhigin walaa tabarajna tabaraja aljaahiliyati luula sidii dadkii gaalada hore isu soo bandhigi jirtay ha isu soo bandhigina baa la yidhi waxaa la faray si miyir leh inay u socoto oo maxaa la tilmaamaya cagaan dhulka ha ku garaacina iyo waxaa gashantii dunidaynu maanta joognaana waa alcaksu almughriyaat waxa la yidhaahdaa jira waxaa jira niman ay yidhaahdaan style engineering or design engineering waa dad iyagoo u lacagta badan leh maxay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan si dadka loo lumiyo waxaa la ogayay qofka bini aadamka ah ee ninka ah waxay yidhaahdaan daymadiisa maskaxeed waxa ugu badane soo jeediya waa qof dumar ah qofka dumari waa waxa ugu badan bay yidhaahdaan ee intibaaha qofka soo jeediya markay taa ogaadeen ayay u adeegsadeen waxa xun oo dhan haddii taayir la xayaysiinayo imika tv-ga gabadh qaawan baa horta soo boodaysa gabadh iyo taayir maxaa ka dhexeeya waxay ahayd haddii taayir la xayaysiinayo gaadhi dheerayn iyo waxaa in layna tusabay ahayd soo maa wax kasta oo la xayaysiinayo mostly cidda wax xayaysiinaysa waa qof dumar ah waay waxaa la ogayay rag oo dhami inuu dumar eegayo waa waxa ilaahay ku abuuray rag oo dhami inuu dumar xaggooda eegayaa la ogayay waxay ogyihiin kabaha raggu iyo kabaha dumarku lama odhan kab iyo kab weeyaan isku nooca noqdo ama kala nooc dumarka kab dheer baa la sudhaa kab kastoo dumarku leeyihin inta badan waa ka cidhib dheertay kabta ragga waayo waxaa la rabaa tamaayo markay soconaysa inay dheeldheelido hadday si caadiya u socoto jidhkeedu dee si degan buu u soconaya laakiin in balanska la lumiyo ay dheeldheelida kabtan fiiqan loogu xidhaa kabaha dumarku
inta ugu badan le dhammaantood way sanqadhaan kabaha raggu sama sanqadhaan nin hadduu dhabarkaaga maraya garan maysid gabadhi hadday maraysa laakiin haana daabay ku leedahay way kan waad maqlaysaa qodho 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 waad soo jeesanaysaa yani waxa kan bilaash looma samaynin waxaan la wado oo dhami waa in xumaha la faafiyo waa muqriyaat waa waxa laaliya wixii qofka ninku markuu xaragoonayo xataa ka gaalka markuu xaragoonayo jidhkoo dhan buu asturaa ninku waa inuu suud xidhaa koodh xidhaa tay xidhaa meel muuqataaba ma jirto intan yare wejiga mooyaane gabadhu laakiin markay xaragoonayso maxaa lagu sameeyaa nin iyo gaal iyo gabadh nin iyo gabadh gaal oo xaragoonaya labaduba arag gabadhu mara gaabano ama goonno halkan joogta ama mid tafta ka dilaacsan halkan joogta ama mid naasac ka dilaacsan maradu iyadu ma astura ninku se wuu wada asturan yihi waa cagsigii labada raggaa cawro yare waxay ahayd in dumarku maxay ay asturnaadaan diimahoo dhammina dumarka way asturaan ma jirto diin dadka dumarka qaawisa diimihii samaawiga ee la yaqaanay idan waxaan uga dan leeyahay muqriyaadku hadda way sii tira bateen gabadhu waxay noqotay wax lacag lagu raadiyo silca wax la iibiyo gabadh kasta waxa la raadiyaa marada meesha ay u qurux badan tahay marka tii kaliyaha u qurux badan le kaliyaha la dalooliya tii naasaha u qurux badan le naasaha loo dalooliya tii luqunta u qurux badan le luqunta tii qaarka hoose u qurux badan le qaarka hoose loo jeexjeexa gabadhu halkay u qurux badan tahay waa inay bannaanka timaadaa that's the style designkan lagu sheegaya waa intaa waa inuu injineerkan wax sawiraya garan karaa qofta dumar ee halkaa u qurux badan le say quruxdeedii usoo bandhigi lahayd idan ayuha alaxiba dhul gaaleed baa joogtaan waa marka koowaad meel aan zimanadu ceebba ahayn baa joogtaan waa marka labaad waa marka saddexaad ee idina qariib baa tihin meel aydan ceeboobayn baa joogtaan waxaa u baahan tihiin inaad dhowrsanaataan inaad diintiina dib ugu noqotaan waxaa u baahan tihiin inaad garataan inay diintay rabbi loogu dhowaado janno lagu galo waxa kale dhowrsanidu inay diintay ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa 7 ayaa maalinta qiyaame rabbi hooska geeya waxay culammadu yidhahdaan waa carshiga hooskiisa hadhka ama hooska carshuraxmaan 7 qof baa iyagu maalintaa hadhsada oo ka badbaada qiyaamaha kadeedkiisa 7dan waxaa ka mida dad acmaal waaweyn sameeyey waxaa kaloo ka mid ah dadka dhowrsanida uu ku dadaalay dadka acmaasha waaweyn sameeyey maxaa ka mid ah alimaam alcaadil buu nebigu yidhi imaam muslimka u taliyo cadaalad sameeyey ummad ninuu cadaalad sameeyey waa rajul cadiim ummad dhan ninuu cadaalad sameeyey waa mansiladii cumar iyo abibakr iyo ragga ahaa ay ku tageen wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaa imaamka caadilka ah wuxuu nebigu ku xigsiiyey oo imaamkaa ku daba naban mid isagu naftiisa ka adkaado dhallinyaro ah shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi dhallinyaro ilaahay cibaadadiisa ku barbaartay in dhallinyaro ah dhallinyaradu waa fudayd dhallinyaronimadu waa fudayd laakiin ninka isagoo dhallinyaro ah waayeelka noqday ee ilaahay cibaadadiisa laazimay kaasi imaamka caadilka ah buu la koox yahay waxaa kaloo nebigu sheegay qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay waa nin cibaado badan oo jamacaasi aanu dhaafaynin salafkii rag baa la sheegaa yidhaahdaa 40 sannadood allahu akbarta koowaad ee imaamku ima dhaafin jamacoo qura maaha waa takbiiratu lixraam nebiguna muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam 40 salaadood ninka takbiirada soo gaadha 40 maalmood baan leeyahay 40 maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biiraynin xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam 40 yowman ninka takbiiratu lixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nebigu ku tilmaamaya baraa'a min annaar baraa'a min annifaaq waa laba shahaado
idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay wuxuu kaloo nebigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel wax kale oo ka dhexeeya aanu jirin laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro waxa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya warajulaani taxaaba fi llah ilaahay dartii bay isu jeclaaday ijtamaca calayhi watafaraqa calayh taasunbaa isu keentay ku kala tagaana kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan innagu kaynu u soconnaa waa kan ku xiga markaa dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaa keligood cibaadaysta ee ooyaa way yar yihiin waa laga yaabaa jamacu markuu joogo imaam cod fiicana ku tukinayo inaad iska yaro khushuucdo ama ilmaysidba laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto warajulun ayuu nebigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliyan ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin fafaadat caynaah indhihiisa ooyeen waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadkaa maalinta qiyaame badbaadada noocaasii helaya rajulun طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها nebigu wuxuu yidhi nin ay u yeedhay gabadhi marka hore waa nin rujuulo dareemaya marka labaadna nolosha caadiga inta badan raggaa hunguri badan oo dhibta raadiya tani waa cagsiga nin isagii la soo doontay rajul ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya maaha waa daatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama manzila rafiica status leh social statuskeedu waa gabadh upper classka طبقة العليا كترسن إذن gabadhani magac iyo maamuus upper classka hadday ka tirsantay oo almost inay hanti haysatana waa u badantay waa gabadh magac iyo maamuus bale quruxna la siiyey waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa laakiin ku jawaabay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innii akhaafu allah innii akhaafu allah gabadha ilaahay baan ka cabsanayaa yidhi ilaahay dartii uga tegey haddaad xumaha ilaahay dartii uga tagto waxau nebigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto inta kadeedka ka badbaada inaad ku biirayso inta carshuraxmaanka hadhsanaysa inaad ku biirayso waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegaya fadiiladaa sare dadka helay nebi ka mid ah yani iyadoo practical ah markan iyadoo theory-yaa la sheegay laakiin iyadoo practical ah ayaa ilaahay qisada haddana qur-aanka inoogu soo arooriyey nebi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana qolo socotay heshay ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imra'atulcasiis loo geeyey nebi yuusuf markaa guri buu ku nooliyey ninka meesha maamulo gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamaadu tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay yidhi albaabadoo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii beytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi
almuraawada si ka waxod xodatay si kasta ay u heli lahayd waxa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan qallaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meel uu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa hunguri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadiioo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya oo gabadha lafteedii markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariib kuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad sodhanaysaa dee malaa waad fasaxantay laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhubayaan ceeboobin baad is leedahay cidlada laakiin lama ceeboobo socankaa maaha ama meelaan cidiba kaa garanayn markaad joogto lama ceeboobo nebiyullaahi muusa nebiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiyo reerahoodii waa laga keenay meelaa cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waxaan cidi garanayna buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhami jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyahay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay yidhaahdaan meesha tan waxaa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zino ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoon oo magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leedahay iyaduu sayid u ah guri cidlaa bay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masalo tiriyaayo uu leeyahay waa dawaacu zina baa qisada tan ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi innahu rabbi axsana mathwaaya innahu laa yuflixu الظaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyahay waxaad sheegayso ilaahay qofka mu'minka ahi yatacawad qofka mu'minka waxaa caado u ah inaanu xooggiisa qura ku kalsoonaanine rabbigii inuu magansado wax kasta inuu rabbigii magansado iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaa wadaanu kaa kaalmo dalbayna acuudu billahi min ashaytaan alrajiim atacawud xumoo dhan wuxuu leeyahy macaada allah ilaahay buu magan gelaya waxaanu tilmaamaya innahu rabbii axsana mathwaaya innahu rabbii damiirka inaad alle u celiso oo ah ilaahay waa i nimceeyo god buu iga soo saarayo waa dhibtii rabbiga iga soo saaray ee nicmadana siiyey macaasidiisa ugu abaalgudi maayo yani sideedaba hadduu qof wax ku siiyo qofkaa waad jeclaanaysaa waa dhaqanka aadanaha si qaabka ilaahay u abuuray hadduu qof wax ku siiyo waad jeclaanaysaa qofku markaa hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin calal aqal agtaada lagu xuman maayo ka warran qof hadduu wax ku siiyo oo wixii uu ku siiyey aad u adeegsato saad isaga u dhibi lahayd kaa dadku waxay yidhahdaan waa maxay waa la'iim oo qof xun qof aad wax siinayso oo haddana wixii aad siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqanna ee ilaahay kula dhaqannaa waa nooca ilaahay baa ina nimceeyey caafimaad ina siiyey waxa kalena siiyey awadan leh wax walba leh wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bes waad mahadsantahay uu inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantahay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u faalxun
نبي الله يوسف مركا وحليه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إلهي بان مغان قال ربي جاي ماشى واي وناتشي ظالم كنا ما اللي بان مفسرين تفسير لبعض بيساران وحيليه وحوسنا حرمين يا إلى لنا يا نين كان أبالك كله ويعني كان يمكن سوي بسده وحكيري ويلكا إلى لبوك يري سورة إلهي كقول ربي أكرمي مثواه ماشى الدشيني سيا وحصر كرامة بكوي مركها أضيقا غوريقا كياني وكلا دردار ما يغير قبضا إنك كان سفي عن الله دغمه إذا وحليه هي نبي يوسف أبا الله وميه نكي سيداي قالين إن هويكي سوي دارته إن حاسكي سوي دارته إنه ربي بولي إنه ربي وكي برباريي وأحسن مثواي أكرمي مثواه وأتي ويريه وأحسن مثواي بولي دقان كي نفي عنيسيي مر نبض ظلمي ما يبولي إنه لا يفلح الظالمون إذا النبي الله يوسف وحي إلهي تصالى قرآن كوغدك تصالى شواوين النبي يوسف لينوغا صوصيه كم تهي عفضة ولما عفة اللسان هي عفة الفرج لبدا النبي يوسف على صور نقلنا ولا الذي سوحي له كسميه أي توبوها إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل إلهي وحده فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له حتى إنه كويل هذا وردك توجا وكعشاض عفة اللسان عرب كيسو دوري هل كنا فرج كيسو دوري مركا أركتي إن أنا أقولين أيوة حيسكت ضيدا إنه كفصته إنه حوكته أرنكو هيت لك سودا في مركان حوك بمريا وحيسكت ضيدا إنه حوك هو قبطه حال كلام مركا مو هيو وعرر عكتو معين بيضا إنه أرضه أو بحصدو يسكت ضيد يسكو أرديه يناي إريسو ومرضى النبر كايد الله عسي أيه أضيق قرق لها كل من البابك مركا البابك كل من أرنتي بوي ركتو وحيتري ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم ومحي أبا المركا بيتري إنك الريركا حماها الله دوري إن لحده يدو بقرك ودنك أما مدحوينه ودنك هوين يديس لقول هذا أما والله عياريسه أما والله حرية هدو بقرك حدنا ساد وصباح السعيد كرم ميسو هذا بقر وحبسك وقرده ساد وصباح الضمطه يانا وحلا قرنا يا ما هب كامر كي تشوفتو نبي يوسف ربي بكون نوضي إلهي ببريه محو إلهي ويدي سنيا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يدو فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم بيتي ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن هدي وحان رما والسمين ويا إلى دوال حدي كو اللي دلينا وكم النقل هدي له هذا حبسي إياك لا دورو هذا ما هذا مركب دول كودا مريا إسكده هل كان واحد جوكتا حبسي إيوه قوسك بقرطوية غير الله توماتات كلا دورا نيسا نبي يوسف مركا أنا حبسي ودورت إن الرب عاصيه أيها وحول بكحم بولي سادر هذا دحولي رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إله حبسك أيها أكتيدا لقاك القاع البداية وحي ويريا إن أنا حبسي قالوا أيها كرم بولي إلهنا سبحانه وتعالى وحط الماما يا مرك ولي بوحد وإلا تصرف عني كيدهن أسب إليهن وأكون من الجاهلين إلى أو هداند مكري قود يا خيامة دود يا دقرتو ده هداند أضغو يدافنين وإلك ده ينبول يا آخر هداي دعضتها سنة وحبقرتها كبيرة يا جاهلة قف كستو إلهي عاصية جاهلة جهله معلومات كماها علمه معلومات ماذا حاجة كتيرة معها علمه هو دورسان وأنت أتكون غنتا علمية
intaad rabbi kula weyn yahay ee aad maxaarimtiisa ka gaabsanayso ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey aanad uga abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso saa daraaddeed buu nebi yuusuf wuxuu leeya ilaahu xabsiga ayaa dhaamo waxay igu yeedhayaan haddii aanad adigu i dhowrinna waa jabaya ilaahay wuxuu leeyahy fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahun ilaahay ducadii buu ka aqbalay ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey xabsigaa la geeyey idan ducada laga aqbalay waa maxay xumaha iyo xabsiga xumaha xun marka kan xabsigani waa xal oo xumahaasaa ilaahay soo dhaafiyey dabeetana xabsaa la keenay xabsigaa ilaahay sii dhaafiyey oo maxaa laga dhigay madax ilaa uu ka noqday wasiirka waddanka ka taliya ilaa uu markii dambe gaadhay waa dhowrsooniduu dhowrsanaadaa dariiqaa keentay u furtay haddaba ayuha alaxiba nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya man yadman lii bayna laxyayn wamaa bayna rijlayn yaa labadiisa daan inta u dhaxaysa ii damaano qaadaya inuu ilaaliyo iyo labadiisa adin inta u dhaxaysa waa carabka iyo farjiga nebi maxamed baa wuxuu leeyahay kumaa damaano qaadaya inuu carabkiisa ilaalinayo waanu xumo kaga dhawaaqaynin farjigiisa ilaalinayo waanu xaaraan ku doonanaynin hadday damaanadaa inagu la nimaadno nebi maxamedna wuxuu leeyahay adman lahu ljanna anna janno ayaanu damaanad qaadaya xadiidka bukhaari haddaa idinku saa samaysaan oo aad ballankaa ka soo baxdaan anna waxaan idiin ballan qaaday buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inaad janno helaysaan idan dhowrsoonidu waa cibaada kaa habeen oo dhan taagan waad gaadhi kartaa haddaad carabkaaga iyo farjigaaga kuwa dhowro ka mid noqoto haweenkana waa kii nebigu yidhi haweenaydu hadday shanteeda tukato bisheedana soomto farjigeedana ilaashato ninkeedana adeecdo albaabada jannadaa la yidhaha kaa doonaysa ka gad jannadu 8 albaab bay leedahay albaabba dad gaaraa ka gala albaab mujaahidiintaa ka gala oo albaab asxaabu sadaqa ka gala oo albaab asxaabu salaabaa ka gala waa albaabo takhasusaadkaa kala leh albaab kuwa sooman baa ka gala baabirayaan abibakar markuu nebiga weydiiyey ma jiraa qof albaabadaasoo dhan ka gelaya wuxuu nebigu yidhi haa waxaana la arkaa inaad adigu ka mid tahay buu nebigu ku yidhi idan mansilada abibakar bay gabadhani ka daba tegaysaa waayo waxaa la leeyahay albaabkaa doonto abibakar wuxuu lahaa 8 albaabba mid looga yeedhayaa ma jiraayo nebigu haa buu yidhi adigaa la insha allah adigaa ka mida buu tilmaamaya haweentanna waxaa la leeyahay ayu abwaabi aljanna baa la odhanayaa shi'ta ka gal kaa doonto oo maxay samaysay waxay samaysay inay salaad tukatay oo soontay ninkeedana adeecday farjigeedana ilaashatay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan warka waxaan kusoo koobayaa wiil kastoo yidhaahda waan isxijin kari waaye aakhire nebi yuusuf baa ku markhaati furaya in la isxijin karo gabadh kastoo tidhaahda waan isxijin kari waaye maryama aakhire ku markhaati furaysa in la isxijin karo laakiin maxaa loo baahan yahay iimaankaagu inuu xoogoobo meelaha fitnadana inaad ka dheeraato oo dhulka khayrka iyo wanaaggu yaallo inaad u badatid sala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin